بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ahay gabar u dhalatay galmudug ka soo jeeda asal farac waxaan ka xumahay ninka la yiraahdo magaciisa Axmed Fiqi oo xildhibaan ka soo jeeda galmudug haddana ku hadlaaya war xun oo aan loo baahnayn war shalay xaguu jira Fiqi markii maxaan ku raashay shabaab uu haysto war xaguu jira shalay markii abaartu dhacday ee dadku baahida leeynaysa weligiis ceel ma qoday weligiis maxaan ku raa wadamo sameeyay weligiis galmudug hal tilaabo uu qabtay ama xildhibaannimo uu qabtay ama tilnimo uu qabtay ma jiraan ama rag dhalinyaro intuu soo aruurshay xataa shaqo u raadiyay ma jiraan waa maya maanta inuu ilaamiyo dagaal uu yiraaho maxaan ku rahay sunna wal jamaa waa laga qaldan yahay wuu ku qaldan ciyaalkiisa wadan kala baxay kuwa yagii uu laay rabaa بالله عليك waxaa idinka codsanaya hadaatiin reer galmudug ninkaas laba shaatilaha ee shalay xasan sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud maarta ee gateen jeebka ku riteen ee dadka dalka iyo badaba gat kamida oo xataa galmudug kamida lacagtii shalay uu ka qaadanay ragaas intuu waayay uu qamaamay uu helay dad dawladda oo hore u socdo wadankii wax u qabanay dhalinyaradii lacag la'aanta lagu leenayo sunna wal jamaa ay haysatay shaqaaleysiyo lacagsiyo qarameeyo qoreysiyo adduunyasiyo tababar maanta haduu leeyahay dagaal ha lagu qaado oo ha la weeraro oo dawladda ma rabnay ha naga baxo ay habargidir ha kacdo uu leeyahay xagee aadan odayaashii aawe wax garadkii aawe xildhibaanadii kale ma waysan lahayn mas'uuliyiin habargidir ma waysan lahayn galmudug mas'uuliyiin ninkaas garata oo aragta wuxuu xildhibaan u yahaan jirin wuxuu wax u yahaan jirin cid wax u tarayaan jirin nacnacdiisa meelihiisa la fadhiyo dawladdaas ka tuugsado ha iska fadhiyo meelihiisa ha iska nabadgeliyo galmudug maaha mana ka tirsan mana u aqoonsan xildhibaanna nooma waxaan u sheegayaa dawladda oo u sareeyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha yaga ahlan wa sahlan hayaa kala galmudug dhulkaagi weeye waddankaagi weeye waddanka ka soo jeeda waaye kursiga ka ugu fadhiido waaye galmudug ma sagaal ba ma wayse ka tirsaneen maxaa la dhahaa cabud waaq galmudug ceel buur ma wayse ka tirsaneen galhareeri ma wayse ka tirsaneen galmudug way ka wada tirsan yihiin wax hadlaaya maaragta maxaa ninkaa macaarad ka dhigay kursiga uu sareeyay Soomaaliya madaxweyne waa madaxweynihina waa qaatay galmudug haddii maamul goboleed hoose loo sameeyay ee walaalayaal heshiis la yiri ee habeenba waxaan ku raa lacag la siiyay wiilkayga wasiir ha laga dhigo gabadhayda ambassador ha laga dhigo socon mayso ma wadankaaga laga gadana waxa galmudug isku raacsan tahay ay rabtaa galmudug waxaan rabnaa daacada galmudug waxaan rabnaa mid galmudug waxaan rabnaa dawladda hoos tagta lagu aqoonsado caalamka dhan ma baahnin galmudug tafaariq iyo qabiil hore ugu soo daashay haddii dagaal wax tiraayo kiinu Soomaa ay soo dagaalantay kii maxamed siyaad baray soo dagaalantay kii waxay soo dagaalantay abgaali habargidir kii mursadaha kii xawaadlaha dagaal kale ma u noqon habargidir nasiinay u baahanta war Fiqiyo shalay markaa xamar dhex taagneed maxaa la dhahaa indhacade oo inta qaatay qoryo oo la aadayay maxaa la yiraahaa saybiyaan wiilasha furunta ku jira hooyooyinkooda guryaha ka soo baxa oo laha hadaa ixtiraas xildhibaanta maxaa u dhiibaysa dawladda joojiya ninkaana wuu qadayay dhul ma u haysin waa la ka raraa maxaa u dhiibaysa maatadii carruurta xabada lagu korleynay maxaa u dhiibaysa wiilkii yaraay ee 20 jirka ahaa aakaa watay furunta jooga soo baxay yiri haweeney xabad lagu mariday kaasaa ka xaniin roon kaasaan xildhibaan hanacnaceynay meel naga fariiso war habargidir ninkaas ka qabta hadaad iska qabanin wallahi ceelku idinku rido waligiina ka soo baxeen war ceel midin qod carshaantii wali ku dhex jirtiin sandaqadii muxuu dhisi waayay xildhibaanka muxuu wax ugu qabay wadankiisa xildhibaanada sa aragtay boosaaso iyo garoowe iyo maxaan ku rahay buuhoodle iyo maxaan ku rahay kismaayo iyo ay u dhistaan muxuu dhisi waayay wadankiisa bay dhaw fiir sidii loo dhisay madaxweyntu ka liitaa dhiig iyo damiir iyo uus midna ma leh ninkaan laalus qaataa maxaa la dhahaa kuwan imaaraadku ay dabada ku wataan iyo Abu Dhabi
hanaga leexda islaan hadduu yaa naga leex wiil dambo habargiisa dagaal inuu ku dhinto looma baahna mana u baahnin walaa hiraabaan u baahnayn walaa hawiyaan u baahnayn walaa soomaali weynaan u baahnayn soomaali midahana ummadda nabi maxamed haddaa ku jirsanayona dhinaca qaad عقاشة علماء الدين وهجرتك محن كورا حلبانة وزيرة عسكرية قاشان لها سرقاكيشة كل أنت كسر جد كلمة وحاء وشيء نكاس ناس كقبض وافرشاتله ولا بوتيله نكاس اسكقبت هذا سلامتين والسلام عليكم ولا ليالو وحاء إنك عسنا هدار هي قلمك تين أكسر جدا قلمك هذا مقشان عدكي هذا من إسلامتين أمنا إسلاماتين إلما أذير يالو أحمد فقي كارثية وركي سيدا أقول لك سيابا قف الله لقفت مقشا عدكي وإني قارسيدا قفتي قارسين وآخري الدون وهست وقود بيا ولا ليالو وقود بيا وركي همقل أضي عقال وحقرت قلمدك لأن يرى عسكرت الدقود كل صومالي ولو حنقعد سنة أنت عدكي مقصفقي إني قارسيس والسلام عليكم ورحمة الله